horta waa fasalkii ugu horreeyay form 4 ee gobolka Togdheer ka galaatay ee ugu horgalay marka ilaahay isku keen asturo ilaahay guul baa idinka rajaynaya waxaan u soconay dhowrka arrimood waxa kamid ah inaan horta bal aragno form 4hada iyo eerarka koow bari abaara badan baa ka jira inkastoo dalkuna de bariyo kaliya maahe Facebook arday waxa ku soo qoran had iyo jeer markaan malaha marmar baan gabilayo boorabiyo markaas ayaan daawado dalku galbeeduna ma xan moogtay bari muddo badan baan ku soo noqnoqdaa laakiin de mar walba meel baa laga tagayaa imika doorka waxa weey waa doorkii runtii bariga oo ilaa tuulooyinka soo marnaan rabnaa inaynu ogaano bal ardaydii abaarihii dhulkii maxaa ardaydii form 4 kaydii eerarkii maxay saameysay abaartu maxayna saameyn way waxaan rabnaa caruurteenu deeynanay ilaahay waxa ka rajaynaynaa saynu uga baranay roobkii iyo nimcadii inuu ina siiyo inta ka horeysa markaa inaan inaguna aynu de kii ardaygii abaar uga qaxay iskuulkiisa hadaynu dhahno waxba imtixaan laga qaadinay yeelkadii meesha doona ha tago idoo dad liitaynu noqonaynaa de marka wax rabnaa daba socono oo nu ogaano joon weey imtixaanku ilaahay saynu uga baranayna inta abaar ilaahay nagu gaarsiin maayo ilaahay horta ilaahay abaartay naga jabiyo aamiin dhax ilaahay waxaan ka barweynaa inaan imtixaanka ka horba barwaaqadu ay noo bilaabanto imika markaa waxaan sahaminaynaa bal ardaydii wixii ay saameysay abaartu idinkuna markaa tukanaysaan sujuudda ku duceeya sujuudda aad buu ilaahay ugu aqbalaa wixii ducaa soo ma taqaan xadiiska nabigu yiri basada waqtiga sujuudsantii ducada taa ku darata roobka iyo ta imtixaankaba mid waa taasoo waa ta kale imtixaankii shaqo qaran ayaa berita ka dhacaya dalka oo dhan taasina arrintaas shaqada qarankina aad baan u soo dhaweynaa anigu xafiis imtixaan ahaan waayo ardaydu intii hebelba meel geeyay la oran lahaa imtixaanka shaqada qaranka sida u kala sareeyaan waa sida imtixaankiina form 4 ko kale card baa loo sameeyaa inta ugu sareysa baa la qaadanaya way dhaantaa soo ma suldaan hebel baa geeyay oo hebel baa geeyay soo kama fiicnade waa chance aad u wanaagsan oo markaa ninkii arday dadaala oo shaqo ku helayo kaasaan isagana dalka oo dhan ka dhacaya iyagana wuxuu rajaynayaa si fiican oo degan inuu noogu dhameeyo kaayadana sanadkan waxaan rabnaa inaan burcala joogno arkaysa arday walaalkii hooyadiibu ka qaadanaya moobilkii oo aabihiibu ka qaadaya oo walaalkii ka qaadaya waa wada jiiti hadii ka la qabto dalaanka ku xiga waa kan hadii ka la arday baan marsan moobil ku qabanay shan moobil waxa bahalkaas waa lugooyo oo nimayo baalka ka taxadira waxa la ogaataan maadaama imtixaan shaqo qaran la gelayo ardayga aqoontiisa inuu wato Soomaa de hadaa adeer moobilka lagu shaqeeyo inuu waxba garanayn bari imtixaankii shaqo qaran maxaad ku gelaysaa waa wax la 4 saacadood la qaadayo moobil iyo chance u heli maysid aqoon baa lagu kala xaraya meenahay markay aqoontaada maskaxdaada kugu jirto adeer waxa weey bahalka inaga daayay bahalkaasi inkaar buu leeyahay awal bahalkan inkaarta hargeysa ku qabi jirtay dagaal badan baan gobolka ku qaaday maroodi jeex waxaad moodaa moobiladii in laga soo ilbaxayo imika waxaad moodaa bahalkii inuu xaggan bari u soo kacay culayskiisii oo halkan imika dad baabada shaqo ka dhigtay oo waanu ognahay laysaskooga iyo xogo dhan war hayna ardaydeed marka arday isku haleyn moobil baaba inagu soo korodhay adduunyadana dal markuu baabaayo sidiisaba waxa loo fasaxaa caruurta eegashada nin professor reer South Africa ayaa falsafada practice gareeyo cadeeyay waxa weeysin bal waxa loo fasaxay dil rabo dal adigoo hub badan ba ku isticmaalin oo kharash badan ba gelin ba dalka baabin kartaa maxaad ku baabin kartaa waxaad u soo saaraysaa engineer ku soo baxay maxay jiiti iyo qish inka xaafada haw dhakhtaru noqdo nimaan waxba aqooni gurigana u dhisay reerka maxaa ka noolaan dawsaa ku xisaabta mustaqbalkii dadka dalka madaxweynihii berito halkii lamba uu ka soo bixi karaa haddaan markaa waxba aqoon soo dadka daay kale u tahay meys marka waxaan uga daleerahay inaad fahantaan weey maaha daawud imtixaan uu leeyahay iska cili daawud la ficiltan maaha xafiiska imtixaanka la ficiltan maaha waxaynu imtixaanka u qaadayna idinka inaad aqoonta kororsataan oo berito dalka waxaad ku hagtaan la tagtaan haddaba waxa weey waligiin iyo allahi waxaad ku talinayaa eeg maanta saad seexan oo adigu leedahay inaad qaadato suuqa la tagtid oo aad doono meeshu doona heer seexnaado wuxuu ka qiimo badan yahay qof tiraahdi saari si oo intaad ka qaadato hadduu rabo ninkii kolkaad ka qaadatay ka soo qaad maskaxdii baa laga galay ninkii suuqa dhexdiisa ilaa qofka hadii maskaxdii laga galay kiyaad ka qaatay saarkaba maahe saarkii balba ka war hadduu ka ku dhago toobar caarad soo faraxad baa
haddaba tani waa la mid imtixaankan waa la mid wax lagu soo dhoobdhoobo moobil lagu soo diray ayaa wax qaar baa kolkii qorayay waxay ku soo qoreen oo kamid ahaa macallinku war hebelow halkaa hebel la u sheeg kii ka qorayay baa warqadii imtixaan ku soo qaaday maxaa u sheegay maxamedow jaamacna u sheeg baa lagu yidhi imtixaankii ku soo qoray warqadii baan ka dhaxragnay wax alla wixii muhammedka ku qoray la soo diray ayuu soo qoray wuu isdhaafinayaa sidiisuu u koobi garaynaya jawaabta wuxuu qaatay inay jawaabta ka mid tahay iminka mustaqbal fiican baad leediin waxa weeye macallimiin fiican baad haysataan waxa weeye intaad hadhow jiitig samayn lahayd waxa weeye inaad intaad macallinka u yeedhatid ama ardayda xarfaanta wax kugu dhaanto waniyo bal intan fahansiiya kiinana waxaan rabaa manhajkii inaan ogaano waxaan rabaa wiil iyo gabadh ka sheekeeya manhajkii halkuu marayo oo cabdallahna aan ka baqayn maamulaha bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillahi rabbil caalamiin wa nastaciinu calaa umuuri dunya wadiin marka hore xafiiska imtixaanaadka qaranka waxaan ku soo dhaweynayaa iskuulka ugu faa'iido weyn gobolka Togdheer sida uu iskuulku ugu faa'iido yahay ayaan hubnaa in ardaydiisuna ugu wanaagsan tahay imtixaankana aanu kalsooni ku qabno si wada ogtiino wax sanado badan ba imtixaan ka soo shaqeynayeen maamul fara badan dad wada aragteen oo ardayda qishku dhiirigelinaya laakiin anaga maamulkaygu ilaa 3 ilaa 1 ilaa 4 runtu noo sheegay wuxuu wax qish leeyahay ma jiro maamulkuna taa waan ugu hambaleynayaa manhajka ayaa u yimi manhajka horta maadada carabiga dawlkii ugu dambeeyaan lahayn waan maadooyin badan baan dhameynay maadada carabiga ingiriisiga geography gabagaba laakiin maadooyinkii fara badnaa xisaabta xataa waan dhameynay wax yar baan harsan physics ko kale chapterkii ugu badnaa waan haray walow tuugiina corona jirayo aanu term dhan fasaxayn isna wax yar baan qaadanay trigiina isna wax fara badan baan naga maqan marka horta taas waa inta mar labaad ma saddexaad waxaan ku soo dhaweynayaa iskuulka ugu faa'iido gobolka Togdheer aad baad u maasantiin bismillaahir rahmaanir rahiim wasalaatu wasalaamu ala rasuulillah su'aal baan gudoomiyaha weydiinaya insha Allah su'aashu waxa weeyaan manhajkaanu dhigano jabta maxay manhajkaanu dhigano buugtiisu waa kala duwan waa daabacad hore oo 16 iyo daabacad dambe oo cusub marka ardayda way ku wareersan yihiin marka ardayda manhajka ardayda وعربي قو كلا تصاحان مكان تربية قو كلا وي كوي كلا دوين ما أددا بيولوجي قو كلا مركا أردد واحد سكوها يعني ما منهج كيو هراء تحان كلا قصو قاضية أو دعوات هراء مسد دعوات تنبيع عصوب بسم الله الرحمن الرحيم مقعي واسمه محمد عواد جلاس كفور بي خاصة سكول كقبل كتقدر الشيخ بشير عاد بندين سلامية قدون كوسارة قلادة حفيز كامتحانات كوه الريو داود sidoo kale waxaan salaamay maamulka iskuulka iyo ardayda bacda salaan aad baad u mahadsantiin horta inaad noo timaadaan waxyaabo imtixaanka ku saabsan amba adigu sidii imtixaanka aad nooga waranteen way jirtaa arday horta inta badan waxa laga hadlaa waa qishka waxa inta badan laga hadlaa waa qishkuna saameynteedu leeyahay qofna uma fiicna haddii maanta qish aad ku baastid way ku hortaalaa hadhow way ku hortaala sidoo daawud sheegay wuxuu yiri waxa jirta tusaale soo qaadanay shaar hadaad leedahay oo yaani aanad lahayn oo xidhatid waxa suuqa tagtid qofkii uu kala baxay sidoo kale gabayga muxuu ahaa magaalada hashaada ka roon may dhanaan kale markaas taas waxay cadeynaysaa in aan isku halayn lahayn mar leeyba waxaad qof ka sugto inaad adigu go'aansataad qaybto waxaad garan weydana aad garan weydo waxaad garatana aad garato waxa ka fiican in adigu aad ku tala gashid oo aad waxaaga mar leeyba ka go'naadan commitment ka ahaato inaad waxaaga diyaarsatid maamulaha iyo maamulka ku-xigeenka iyo macallimiinta inta badan waxay nagala hadlaan waa qishka qof uu qishka ku tala galin walina anigu haddana waan idin leeyahay iyagoo maamulkiina joogaan macallimiinta iyo maamulkii wasaaradda iyo gudoonkii commissionka imtixaanaadka intiiba ay joogaan qof uu qish ha ku tala galin haddaad qish ku tala gasho daada yaqaan waxa kaaga meel yaala laakiin wax cad oo aad ku tala gashay aad qorshaysatay inaad qaybtid waxaad garan weydo waa wax yar oo basiida waxaad garan weyda laakiin mar leeyba anigu ardayda Sheekh Bashiir gobolka Togdheer guud ahaanba Soomaaliland waxaan u soo jeedinayaa qof oona inaanad qish ku tala galin because of hadhow qofkii qishka ku tala galay qishka ku soo baxay meel kale haday caqabad kaga timaado eedaynta waxa loo jeedinayaa macallimiintii iyo maamulkii iyo commissionkii oo loo leeyahay imtixaankii qof loo xdiyo qofka garabka la saaray marka anigu waxaan ku talin lahaa in qishka laga waantoobo oo aan qishka laga dhiganin yaani hooy qof walba uu bal maxaa taqaanaa uu yiraahdo
haddaad doonto waxaad garan weydaba ku barba dhacba dib aad u dhigan dib aad u eegi laakiin qish markaad ku basteed qish ku qaadato dee kuma wadayso hadhow toole markaad ama shaqo tagtid ama meel tagtid shahaadadaada ee ku qoran tahay interviewga haddaad ku dhacdo maxaa kuu nafa waxa kuma nafa hadde halku ka yimi baa lagu odhanaya marka aad baan u salaamayaa maamulka iyo guddoonka wasaaradda iyo qolada komishanka imtixaanaadka intaba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaahi raxmaani raxiim wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam ugu horreyn ilaahay baa mahad leh subxaana wa tacaala inagu kulmiyey halkan marka labada xabad mahadnaqayaa guddoonka wasaaradda waxbarashada iyo guddoomiyaha imtixaanaadka somalilan haddaan aan su-aashayda aan soo galo su-aal ma wado laakiin waxaan wadaa maadaama aynu nahay dad bulshaha inay wax isla wadaagno wax isla eegno waxaan anigu u arko ama talaa aan wasaaradda aan soo jeedinayo de waa laga wada hadlay wixii imtixaanaadkaa wax kale ma jiraan oo waa la dhameeyey waxyaabihii aan odhan lahaa laakiinse maadaama aynu nahay arday dad somalilandera waxaan doonayaa in lagu daro buugga wasaaradda waxbarashada ay ku darto waxbarashada manhajka buugga wadaniyadda somalilan lagu baranayo maadaama oo ah ardaygii waxaa jira history oo kale waxaa lagu dhigayaa wadanamadii dunida kale iyo caalamkii laakiin ardaygii ma garanayo goboladiisa somalilan iyo deegaanadiisa tuulooyinkiisa qaar ka mid a haddii loo sheego waxa laga yaabaa inaanu garan marka wadaniyadda somalilan buug ka hadlaya ayaan taladaydu tahay in lagu daro manhajka wasaaradda waxbarashada imtixaanaadka qaranka marka waxa weeye ku soo dhawow dugsiga sare Sheekh Bashiir halkan laba fasal baa kugu fadhiya 4A iyo 4C waxa weeye 4A waa habla khaas ah 4Bna waxa weeye waa inamo marka 4Cna waa inamo marka ku soo dhawow guddoomiye adigoo waxa weeye anagoo ku faraxsan imaatinka dhammaantiin waxaan ku salaamaya salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu farxad bay inoo tahay maanta inuu nala joogo halkan guddoomiyihii xafiiska imtixaanaadka qaranka oo aada noqotaan iskuulkii koobaad ee u booqdo fasal baa idinka horreeyey gobolka laba arrin buu u socday labada arrin ee uu u socday waxay ahayd mid waa imtixaanaadka dhalintii shaqo qaran dufcaddii afraad oo berrita la qaadayo ta kale guud ahaan gobolka togdheer wuxuu u kuurgelayaa waxbarashadu qaabka ay u socoto iyo manhajkii halka uu marayo deegaanada miyigu u bixi doonaa marka aynu kormeerka gudaha dhammayno markaa maadaama ay fursadna sugaya inaad maanta jaanis baad haysataana weydiisaan si aynu uga faa'iideyno ardayda kale gobolka iyo ardayda kale waddanka ee aan fursad u helaynina waxaa laga yaabaa intiina ay daawadaan ay ka faa'iidaystaan markaa intaasaan anu kusoo gabagabeynayaa aada iyo aad ba umahadsan tihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii waxaa anigana farxad weyniye ah inaan sanadkan kormeerkaygii kusoo bilaabay gobolka togdheer in badan oo malaha galbeedkaasi muu noo dhow yaho yani in badan waxaan arkaa had iyo jeer ardayda waxay soo qorta ha comments daawudo hadda dalku galbeed maaha marka waan ku taamayay markaana inaan markaa sanadka waan ku talagalay in badan horena bari waan imid dee waxa weeye kolba qolodka cusub ee foorfooree yimaada iyo haddaysan rabo markiisa in la arko iskuulkan waa iskuul qadiimiya Sheekh Bashiir ina Sheekh Bashiir nasiib u yeelatay inaan secondarygii ugu horreeyay tagay in wuxuu noqday Sheekh Bashiir hal fasal u bayd ka horreeyay oo muxuu ahaa biya 4B markaan intaa ka tago waxaan u soconay sidii gudoomiyaha waxbarashada gobolka idin sheegay dhowr arrimood mid waa ka shaqada qaranka oo idin kale idin sugaya wax kale oo soconay inaan ogaano form-4ka iyo 8ka manhajkii halkay ka marayaan qorshahan u socono horta waa ka marka fasaladu badi way noo sheegeen laba buug tarbiyada carabiga ayaa waxoogaa ardaydu ku wareertaa leeyahay oo dhimcinaha laba buug mar la wada daabacay haddana kala duwan yihiin casharadooda baa la idin wada keenay Soomaa taana waxaan samaynaynaa mar walba ka hore ayaad idinkuna xoog saartay baan u maleynaya Soomaaha marka waxaan ku dadaali doonaa anagu inaan ka horan ka soo dhigno imtixaanka haduu ilaahay raa aw labada buug waan soo sawiranay waan soo aragnay taa waa kalaaskaas ay idin soo yiri waxaan filayaa manhajkii inuu iska gabagabay yahay laakiin hal arrin aan idin sheegay ardaydu had iyo jeer
waxaad moodaa in ardaydu imtixaan wax u barato mana aha in imtixaan wax loo barto aqoontu waxa weeye adduunya aakhira waxbay kaaga taraysa inaad u barato markaasi kal iyo laaba oo masalan aad xataa caruurtaada ku anfacdo ayaa loo baahanya waxaad moodaa in dhaqan waxay noo yimid aynan hore u lahaan jirin Somaliland waxaa la yidhaha eegashada ma aqoon qishka lagama aqoon waqtiga yagii in badan deedii kama sii weynay laakiin tii aanu ka horeynay runtii lagama aqoonin ceeb bay ahayd marka dhaqan lahaynba maaha xaaraan wariga idin sheegaya marka waa maxay waa laga xishoon jiray waxa taqaanun baa la shir tagi jiray imika mushkilada inaga haysta waxa weeye imika halkii aqoon laga buug laga raadin lahaa waxa la raadin smartphone baa la raadinaya haddaba ninkan moobilada soo urursanayo bal ka soo qaad star baad keentay maadaa leh mayna ayaan darra ahayn markaa moobil macallin waxoogaa kaa qaado kaas macallin laguma sii karin anu macallimiin ma idhaahdo kuwan qishka banaanka uga soo dira ardayda macallin anu ma aqaano kaas waxa weeye waa khaayin waxaan arkayay mid ardayda moobiladaanu qaadnaa waxaan ku arkay laba arrimood oo mucjiso ah midii ardaydii buu la hadlayaa markuu imtixaanku dhamaado wuxuu leeyahay dee wakaasoo waniga wakaa ilaahay idinka farxiyaana ilaahay ii weydiiya inuu ilaahay iga farxiyo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu man qashana falaysa minna mayada ducada ku aysan kaarmid kugu bedelaysaa waayo dulmi mid aan waxba garanayn buu qofkii wax yaqaanay dhaafinay marka xaquu ka keenaya ducada qishku waa lugooyo inuu ilaahay ka waa inkaar waa shaydaan baa ku horkacaya de waxa saaran imtixaanba waa lugooyo marka aanu kuma farxo waa laga yaabaa waalidiinta iyo ardayduna faraxsanayado anu laakiin ka naxa anu waxaan aaminsan ninka qishku siiya isagoo xabad kugu dhuftaa kugu dhaanta marka macnaheedu kalsoonidu waa waxa aad taqaano marka waxa weeye su'aalo waa idin fasaxaynaa laakiin ayaanu bahalkaas firaa baynu ka taaganahay bahalkaan iska ilaalino aad ba maasantii gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka qaranka Daawud aad baan ugu mahad celinaa gudoomiyaha Caydina aad baan ugu mahad celinaa dhamaan waftigan socotana aad baan ugu mahad celinaa gudoomiye kale waxyaabo badan ka dhawaajiso mobilkaas ka mid yahay ama qashku ka mid yahay waxa jira imka waynu aragno dad badan oo aan iskuulada soo xaadirin ama dad badan oo aan maaragtay waxbarashada aan dhiganinba sanad dugsiyeedka ayaa ka sareeya dad badan oo mar walba soo xaadiro yimaada taat keentaana waxa weeye qashka balaas bay ku baxaan balaas ku baxaan waxa jirta in scholarship waliba la siiyo scholarship dadka qaataan scholarship ka lagu helo ardayda jira salaad walba yimaada maalin kasta yimaada haddana si ama dhig ku baxa taasoo kale waxay sababaysaa in qofkii uu kan iyo jabo waxbarashadii marka kana ku baxo qish ku helo kan kana wuxuu soo waxbarashadii ka jiibso scholarship ma ku helana qofkii kalena uu niyad jabayaayo qofku xisoonaya adigoo inta soo shaqeynaya adigu waa maad helinin waxbarashada ka jiibso marka kii balaas keenay maaragtay qishka ku baasay in imtixaan ardayda dib loo galiyo dib la isugu soo celiyo ayaan ku baaqayna taashida labaadan dooniyay in ku diibo waxa weeyaan mobilkaas bay yimi mobilka waxaan ka baxay anigu aidka waxaan ka baxay 2018 waxa jiray dad soo qaatay mobil anaguna mobil ma cheating waxaan laga saaray laba maado aanu galnay cheating laga saarayna ingiri mobil maanu sidan maanu qishayn dad baasitay haddana xaqaday noqotay in anaga maadooyinkeega aanu weyno dadkii sitanay waxba ka qishayn deelona wada raaciyo taasoo kale meen hoos in hoos loo eego dadkii la yiraahdo mobilada sitay gaar loo qoro dadka kale la gaar loo qoro kusaan kuma jirin mobil ma sidani haddana waa la raaciyay taasoo kale xaqadan aan ugu arkaa mid kale jirta waxa jirta kulay sanduuqsiyeedkii 2020 waa ka corona dhacay waxa jira towgii kala badin aan dhiganba tiligiiba inaan labadiiba ka baaqsan imtixaanka waxa ku jira dhamaan ilaa 1 ilaa 2 oo dabada la isku soo qabtay mise waxa ku jira intii aan dhigano jabtadii hore aad u wanaagsan bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulay magacaygu waa Cabdirsaaq waxaan cali wax ka tirsanay fasalka forsi anigu su'aal weydiin maayo gudoomiyaha imtixaanka hal mid uun baan weydiinayaa oo ah kuwii imka naga horeeyay fonforka imka naga horeeyay si wasiirka waxbarashadu ka dhawaajay doorkii hore wuxuu yiri waxa ku jira imtixaanka 70% waa 4 buu yiri imka markaan maktabadii tagnay aan sunna imtixaanadii hore eegana de waxa naga soo horbaxay waa 2gii baalka naga soo horbaxay iyo 3gii 4kii laba su'aalood iyo 3 su'aalood baa ku jiray marka ama gudoomiye ma waxaad isku raacsantiin inaad ardayda wax kale aad ku sheegtaan aad ku tiraadaan 4kii baa intaas 4ka aan xooga saara kuwa kale iska daaya ardayda marka 4ka xooga saartaan kuwa kale loo soo dhigo ama inaadna wada tiraadaan war 1 ilaa 4 waan idinka soo wada qaadaynaa soo wada diyaar sida wixiina haddii saasi sax tahayna de waan ogalay laakiin tan kale de ardayda ma doorka hore lagu wanjalay annagana ayaan lagu wanjalin baa leeyahay ana laga yaabay
saddex wiil iyo saddex hablood baa xafiiska imtixaanaadka igu iman doona gobolka imtixaankii horaan isa soo bardhigaynaa inta badan waxaan jirin baad ardaydu iska dhaadhicisaa hadday dhacdo inay 3 su'aalood iyo 4 su'aalood foorfoorku ahaayeen waxaan bixinaynaa apologies waliba qoraal wax kale iska daa af maahe waxaase kuu sheegayaa boqolkiiba 70 inuu haa anaa ku tusi servicekiina soo qaad form 2 iyo form 2 mushkilada hal mushkilada ardayda haysata imtixaanku manhajkeenu waa isbaaralku waa wax taxanaa form 2 waxa ku jira ilaa form 4 ku jira cutubiyada waxay ku kala maaha khasab form 2 in form 2 oo halka lagaga imanaya maaha waa biladaad nagu tixilay haddii ogtay sidaan wax loo nidaamiyo looga fikira caruurta ee la isku weydiiyo laakiin wax badan baad ka dhaadhicisaa waxa tiraan sax waa la dedejiyaa saxiidaas oo kale waxa weey warqad walba oo aad leedahay waxa maraysaa mayaha ilaa 14 qof baa warqadaadaas oo kaliya macallinku saxaya macallin su'aal buu saxa waxay u haystaan ardaydu isku sheegtaa tiraahdan uu degdegayaa si degdeg u dhamaato lacagta oo la kala boobayaayo nin waliba kan aan saxay tabal tuuraya marka wax alla wax ka jira ma jiro waa waxyaalaha shaydaanku idin sheego waxan la isku sheegaysaan waa la iska dedejiyaa horta waxba kama jiraan taana adeer waxa weeye imikaan idinku celinayaan beeraala noqor haddana oo haddii ay noqoto form 4 ku ugu badan yahay boqolkiiba 80 form 4 kan ka keenayna imika maanta ku leeyahay imika leeyahay ha laakiin kaadi idinka yaal bal form 4 ko kale ka adkaado mobilada iska day waxaad ku xil qarsanaysaa loo leeyahay imtixaanku ka ma ahayn yaka waa runtaan idin sheegaya annaguna mobilka waa la dagaalanaa uma naxariisano mobil ba hadii kalaas kuma mobil haw ka soo boodo loo naxariisan maayo laakiin boqolkiiba 80 soo imika sanad kuma jirno boqolkiiba 84 kan ka keenana waxaan tixgelinaynaa karoonihii 2 iyo 3 ha boqolkiiba 80 baan ka keenana form 4 ka laakiin bishar marka ku su'aashii aad ku soo dhigatay halka mid kamid oo la noocaad halkan ku jirta haday doonto ha oran waa form 2yadii ka form 4 kana horta ka ku jirta form 4 horta kaas waa ka inantii u kaalay aad baan ugu farxay dhufayska weyn ku wada jirnaa wacyigelinta idinkuna wada ninkan wacyigelintu madax ka yahay xafiiska imtixaanaadka mawlid Umar Kibaar baa la yiraahdaa waxa weey waan la dagaalamayna baalka wayna dhibaysaa arinta aad sheegaysaa waa runta ana marxaad kaaga laakiin mid baa ku haya ardaydii scholarship-ka loo diray ee star-ka ahaa maanta waxa weey boqolkiiba 1% kuma hadi jaamacadii ay taliyo wax tahriibay kuwa tahriiriyad aragtay waa arday jaamacadii la qabsan waayay xaqiiqada baa ka hor imanaysa markaad star anad lahayn jaamacad ku tagtay scholarship lagu siiyo professor markuu halka fariistay lecture-kii lagu sii daayo waxa weey nin dhagalo dhax fadhiya ardaydu ma doqonaysa adeer waan garanay waxaan ku dagaalka kayntii ugu wada jirnaa idinkuna nala wada oo aynu la dagaalanahay ka wacyi gelino waan sii deynaa wacyi gelin badan waxay noo balana laakiin aan isku ogaanay si cad la wax daba isku sheego ee star-ka aanad lahayn inay xun tahayna isku sheega islaamka oo dhan ilaahay abaarta ka soo jabiyo ilaahay waxa ka baryay ilaahay abaarta naga soo jabiyo ilaahay waxaan ka baryay ilaahay abaarta naga soo jabiyo ardayda dadaalaysana ardayga dadaalana ilaahay abaalkiisa si ilaahay ardayda dadaalaysa ilaahay isku kaaya astur ilaahay kuwa khiyaamada iyo tuuganimada ka shaqeynaya soo hanooni ilaahay soo hanooni ilaahay xaqa ha tuso اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل نقرب إلى حبك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم